walaalayaal khudbaddu maanta waxay ku saabsantay 10 sababood oo qofka ay ku oofsamaan in laga helo ilaahay u jeclaanayo subxaanahu waxaynu ogsoonahay addoonka haddii ilaahay uu jeclaado wax ka xumaanaya inaana jirin adduuniya aakhiraba waxaa loo wada ruclaynayaa loo socdaa waa ilaahay raaligelintiisa subxaanahu iyo ilaahay inuu raalli kaa noqdo ku jeclaado hadduu ilaahay ku jeclaado indhahaaga gacmahaaga iyo lugahaaga iyo xubnahaaga o dhan uu ku ilaalinaya uu ku dhowrayaa wuxuu raalli ka yidhi baad ku qabanaysaa haddii laga yaabo qofka inay wax ka dhacaan gaf iyo khaladina ilaahay wuxuu ku waafajinayaa toobadda inaad kaga toobad keento xumaanahoo dhan ood kaga noqoto ood kaga farxalato 10 sababood buu ibnuqayim tilmaamay raximahu llahu tacaala 10kaas sababood baynu dulmari doonnaa sababta koowaad ee ka mida sababaha ilaahay kugu jeclaanaya haddii laga helo waa qiraa'atu alqur'aan inaad qur-aanka akhrido ama in yar ka garo ama in badan ka gare qur-aankii wixii aad ka garanaysay inaad akhrido wixii aad awooddo maalin walba inaad musxafka kala furto ilaahay wuxuu yidhi subxaanah ina aladiina yatluuna kitaab allah ilaahay wuxuu yidhi kuwa kitaabka akhriyaya wa aqaamuu asalaa salaadana oogaya sideedii ula imanaya wa anfaquu mima rasaqnaahum sirran wacalaaniya wixii aanu ku arsaaqnayna muuqatiyo qarsooni wax uga bixinaya iyadoo la ogaya iyadoo qarinayaanba ilaahay wuxuu yidhi yarjuuna tijaaratan lan tabuur kuwaas waxay rajaynayaan oo loo ballan qaaday ganacsi aan marnaba khasaarahayn oo marnaba hoosu dhacaanu ku imanahayn ilaahay wuxuu kaga warramay aayaddan qur-aanka suuratu faatir 29 in addoommihiisa mu'miniintii 3 sifa ay ku sifaysan yihiin 3 tilmaamood tilmaanta koowaad waa inay kitaabkiisa akhriyayaan tilmaanta labaadna waa inay salaadda oogayaan oo sideeda ula imanayaan tilmaanta saddexaadna waa inay gacantooda furayaan oo bakhaylnimada ay ka ilaalinayaan ay ka dawaynayaan arrinta labaad ama sababta labaad waa inuu qofku ilaahay ugu dhowaado salaadaha sunnaha soonka sunnaha cibaadaadka taacaadka waajibaadka dheeraadka ka ah wuxuu abi hurayra rasuulka ka wariyay calayhi salaatu wasalaam sidoo bukhaari saxiixiisa ku soo saaray inuu rasuulku yidhi ilaahay baa yidhi subxaanah cidda addoommahayga ka mida colaadiso awliyadayda ah dagaal baan ogeysiiyey addoommahayguna waxaan ka jecelay waajibaadka ma qabtaan ilaa sunnayaasha ila imaadaan hadday sunnayaashiina qabtaan waajibaadkiina ka soo baxaan waan jeclaadaa kadib indhahooda iyo dhegahooda iyo gacmahooda iyo lugahooda intaba waanu ilaaliyaa khayrun bay ku qabtaan sababta saddexaad waa xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau abi hurayra ka wariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidau axmed musnadkiisa ku wariyey inuu rasuulku yidhi ilaahay wuxuu leeyahay malaa'ig dhulka dul soconaysa malaa'igtaas cid kala daydayi maayaan ujeeddo kalena ma leh cid ilaahay xusaysoo dikri wadda ayuunbay doondoonayaan dikirkaasi cilmi la baranaya ha noqdo cilmi cid la baraya ha noqdo xus ilaahay la xusaya ha noqdo qur'aan la akhriyaya ha noqdo wanaag la faraya ha noqdo xumaan la reebaya ha noqdee dikriga oo dhan baa soo gudagelaya shay kastoo xus ilaahay ku sugan yahay cidda qabanaysee la imanaysa oo talabul cilmi ugu sarreeyo ayay raadinayaan mar alaaliya marka malaa'igta qaar ka mida ay helaan cid ilaahay xusaysa malaa'igtii kale u dhawaaqayaanay odhanayaan halkana xaajadiinii arrintaad doonayseen ka socotaaye isu kaalaya dabadeeta malaa'igtu ay isu imanayso addoommihii ilaahay xusay bay dhegaysanayaan kadibna samaday korayaanoo ilaahay bay ku laabanaya ilahay u inaga sarreeya subxaanah ilaahay isagoo uga cilmi badan ayuu weyddiinayaa addoommahaygu maxay qabanayeen waxay odhanaya ilaahayow xumaan bay kaa nasahayeen way ku weynaynayeen way ku mahadnaqayeen subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaha illa wallahu akbar dikrigay ku dadaalayeen ilaahay wuxuu odhanaya oo miyay arkeen ilaa ay xusaan malaa'igtu wuxuu odhan mee ilaahay kumay arag ilaahay wuxuu odhanayaa hadday arki laayeen maxay samayn laayeen malaa'igtu waxay ku jawaabayeen ilaahow inta in ka badan ayay ku sii xusi lahaayeenba ilaahay wuxuu odhanayaa maxay i weyddiisanayeen ilaahayow jannay ku weyddiisanayeen oo jannada miyay arkeen maya may arag hadday arki lahaayeen maxay samayn intan in ka badan bay ilaahu kusii weyddiisan lahaayeen maxay iga magangelayeen naar bay ilaahu kaa magangelayeen oo miyay arkeen naar maya ma arag hadday arki lahaayeen maxay yeeli lahayen inta in ka badan bay kaasii magangeli lahaayeen halkaa markay imanayso ilaahay wuxuu ku odhanaya malaa'igtii fa ushhidukum annii qad ghafartu lahum waxaan idin maraggeliyey inaan u dembi dhaafay addoommaha dembigoodii aan dhaafay dhammaan malag malaa'igta ka mida odhan ilaahayow dhammaantood kumay xusayna mid baa ku jiray danka lahaa oo isaga xus aanu socon ilaahay wuxuu odhanayaa humul julasaa'u laa yashqaa bihim jaliisuhum waa cid lala fadhiisto oo kala fadhiistaa xataa aanu guuldarraysan sidaasuu ilahay odhanaya subxaanahu wa tacaala arrinta afraad waa ilaahay shayguu jecelyey inaad shay kasta ka doorbiddo oo wuxuu anas ibnu maalik rasuulka ka wariyey
إنه رسولك عليه الصلاة والسلام صدح الرموت قفك لغا هلو ضدنك إيمانكي معاكي سوهلي أرنت كوباد وإنه إلهي رسولك سعيدك سكت عليه أرنت اللباد وإنه قفك تعلاني إلهي درتو تعلانه أرنت صدحات وإنه قال لماذا نعو كراهي يستو إنه قال نقضه أما هدو سوى إسلامي إنه قال لما كل لابتو سيدو كراهي يسيري دبن لقطوره أرنت الشنات وحي تهي إلهي كو تعلاني سبحانه وإن قلب غاغا كأيبتو إلهي مقعيسة الماميسة إن قلبك كطالعته مع نص دعيا صدح الرموت أي قفك اللوغة بهي هدو ربينو عبادة الله يماتو أرنت كوباك إنه مقعيدي إلهي برتو إنت يهين إنت إنه قراني إلينا بري مقعيدو كوي يهين إنه برتو هرتا كدبنا إنه معنى هذا برتو وارنت اللبات كدبنا وإنه كدو عيستو صدح مقعبا إنه تسالين دونا تساله كوباك اسمه الرحمن هداد برت إلهي مقعيش إنه الرحمن يقران كي كسو هاي معنيه سبرو إنه يهي إله النحريس كسي فيزان كدبنا كدو عيسو وحترى يا رحمن ارحمني سيدا كدو عيسو اسمه الرزاق يا رزاق ارزقني اسمه التواب يا تواب تب علي هذا سيدا كدو عيسته إلهي أمرك كسيوات قادته إلهي محيري ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلهي مقعي ونكسم قول لي يكبر يكون عابدا إلهي ما تكبر مقعيسي وذروا الذين يلحدون في أسمائه كوا مقعيدي سئيلين ينكتك بالي سيجزون ما كانوا يعملون عذاب بالقلين دونا وحي سميني بالقوا عبالا من دونا إلحادك أسماء ذا تأويلك باطلك هذا سوق القلية وحكم ذا قفك مسلم كيلو قادو إنه أبو هريرة كبري رسولك إنه رسولك عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما إلهي ما عيسى وحكم ذا سقالي سقاشا مقعيدي سودا ماها ويكبدين قال أنا حتى أنبيض قرني بجرى أسماء الإلهي هو رسولك كنت عيسى عليه الصلاة والسلام أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أفر بوقيبه إلى وعن قوي دي سنة بكل اسم هو لك ما يعكسون ليضي كو سميت به نفسك نفسك كما عاوضي أو علمته أحدا من خلقك أما أدومارك من كملات برتي أو أنزلته في كتابك أما كتابك الوجود تسي أو استأثرت به في علم الغيب عندك أما علم الغيب كأدب يقول لك تعيد بآن الضرين حديث الشفاعة الطويل حديث أبي هريرة وبخاري مسلم بيوريين وهو رسولك شيء مالك القيامة مركو شفاعة وين رسولك الشفاعة قاضيه إن لوفر يا مقعيد إلهي قارن وهروقون يا حسان إلهي أبين كدبنا لوراني ارفع رأسك وسل توطه واشفع تشفع سقالي سقاش مالي نبري سقالي سقاش قاوح رسولك يري من أحصاها دخل الجنة ككوبا جن قلا كوبي دون صدح حاسين نقنصا إن برت مقعيدي معناه دي برتو كعبادي ستو أنت اللي حاله وحيابه إلهي كوش علانا يكمل ومشاهدة بري وإحسانه وآلائه إن الإيكتو نعموين كلهاي فوق الله يستي يسموه كوفر إن ديو إكتو هدايتي نفتادا هدايتي مالكاغا هدايتي أبدكاغي هدايتي دينتادا تكوبادا إن ديكتو كدي من النعمة أتكما هنقدو إلهي باري سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تقصوها هدات ترسان نعمة إلهي فوق الله يستي كوبي ميسان بل وحا لغا يابا واجب بريئي قبل كي دعي نعم كي لغا فوق الله يستينا أنا ترين كريم ساوقد ابن القيم رحمه الله هدي أدور لدونين هلاقة ما أنت قيامة عذابت لقليو نعمة كلها لك حسابية هل نعمة نعم كليسية كمذا هدي لدونين لون حريستنا نعم كيو نبو إلهي كايستان كما حسابية وتحديث عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب كحساب تلا لا تحتيحه العذاب ورسول الله عليه الصلاة والسلام أرنت تتباد وحي تاهي وحي ابن القيم وهو من أعجبها وأنا أردت أقول بدن له وإنكسار القلب بكلية بين يدي الله إنه قلبي يسو قفك إلهي درتي وتشوف إن قلبك خشوع قليسو أو كبرك إذا سريسين تأكسرته هدايت عبادة الإله التي خلقك وحلينا شيء إنه رسولك عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس كبر كله ككومية حقي الله يسكوين أيوه يضدك ولا ليدو ولبوح على ينوشاك حديث كثير من الجامعي سوكون يا شيخ الباني وتحصيريه إن ما أنت قيامه تفكيس كبرين أيي سوي الحل قصو صاري ورسول قيري يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في سورة الناس تفكيس كبرين ما أنت قيامه على كينيا
iyaga oo quraanjo laalay qaab dad u samaysan arrinta sideedaad waa alkhulwatu bihi waqta nuzuuli ilaahi inuu qofka muslimkii cibaadaysto xilliga ilaahay soo degay laynoo sheegay saddex meelood oo habeenkii marka meel baaqite laba ay tegeen oo wuxuu rasuulku yidhi xadiidka sahl ibnu sacad uu ka warinayo jibriil baa rasuulka yimid oo wuxuu ku yidhi iclam anna sharafa almu'mini qiyaamuhu billayl waxaad ogaataa qofka mu'minka sharaftiisu waa sharaftii ilaahay agtiisa yeelanaya dadka agtooda labadaba inay ku jirto habeenkii ilaahay dartuu istaago ilaahay u baryo inaad istaagtaana laazim maaha inaad salaad tukato intaad istaagtaad ducaysan kartaa quraadan salaadba tukanin arrinta sagaalaad waa mujaalasatu lmuxibbiina asaadiqiin inaad la fadhiisato dadka ilaahay jecel ee runta ka tahay ee cilmigii cibaadadii taacada u go'ay wuxuu ka wariyey mucaad ibnu jabal nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu nebigu ilaahay ka wariyay xadiis qudsi inuu ilaahay yidhi wajabat maxabbatii jacaylkaygu wuxuu waajibay lilmutaxaabiina fiya kuwa aniga darta isu jecel waalmutajaalisiina fiya kuwa aniga darta u wada fadhiista ee xan iyo balaayo kale aan u fadhiisan waalmutazaawiriina fiya kuwa aniga darta isu siyaarta waalmutabaadiliina fiya kuwa aniga dartay wax isu siiya hadday wax isu siinayaan arrinta ugu dambaysa wuxuu yidhi ibnuulqayim mubaacadatu kulli sababin yaxuulu bayna alqalbi wa bayna allah inuu qofka muslimka ka fogaado sabab kasta oo qalbigiisa ilaahay kala teediisa waxyaabaha ugu horreeya ugu waaweyn ee kala teediya qalbiga iyo ilaahayna waa shan arrimood wuxuu yidhi ibnuulqayim shanta arrimood waa shirki tawxiidka ka hor yimaada kow iyo bidca sunnada khilaafta waa laba iyo shahwad ama qofku macsiyo uu sameeye amarkii ilaahay khilaafo waa saddex iyo mooganaan dikrigii seejiya waa afar iyo hawo uu qofku raaci hawadana bidca ugu horreeya hawadaasoo tajriidu tawxiid iyo ikhlaaskii dhaawacda camalkii ilaahay loo baraxtirayey iyo camalkii ilaahay dartii loo qabanayay dhaawacda oo ilaahay cidaan ahayn loo jeediyo wuxuu yidhi ibnuqayim raximahullah famin haadihi alasbaab alcashara tobankaas sababaadaynu tilmaannay ayaa wasala almuxibbuuna ilaa manaazili almaxabba dadka ilaahay jecel jacaylka ilaahay bay ku goosteen ku gaadheen wadakhaluu cala alxabiib oo ilaahay ay u galeen macnaa ilaahay daacadiisa iyo wanaaggiisa iyo jacaylkii ilaahay ku mutaysteen wa milaaku daalika kullihi amraan arrintaasoo dhan waxa kaaga filan buuhi laba arrimood isticdaadu ruuxi lihaada sha'n inay naftaadu arrintan diyaar u tahay waa kow iyo inaad furto il indheergaradnimo ah oo khayrkiina aragta sharkiina ka joogsata qofka muslimkaah wuxuu ku dadaalaya mar walba inuu ogaado wixii ilaahay raalli gelinaya si uu u sameeyo si uu u helo ilahay inuu raalli ka noqdo ilaahay dembigeenna ha dhaafo subxaanah tobankaas sababoodna kuwa ku camalfale ee la yimaada allah inaga dhigo